madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maamulka Galmudug oo muddo 6 bilood ah ka maqnaa deegaanada Galmudug ayaa waxa uu tagay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Xaaf ayaa sheegay markii uu gaaray Gaalkacyo in intii madaxweynaha uu Galmudug ka ahaa ay Galmudug ku dhinteen 35 qof, halka 6 bilood uu ka maqnaa deegaanada Galmudug ay ku dhinteen ilaa 130 qof. sidoo kalena oo dib u dhigan doono ka hadalka arrimaha doorashada ee ka socda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo horay ugu dhawaaqay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ku wareejiyo howlaha dib u dhiska Galmudug ayaa mar kale ku dhawaaqay in uu ka laabtay go'aankiisii hore. Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa warqad ku taariikhaysan 2 Janaayo 2019 ku sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha uu kala laabtay wakiilashadii doorashada Galmudug. Xaaf ayaa la sheegay in uu raali ka ahaa sida ay u socdaan dhismaha maamulka Galmudug loo dhan yahay. hase ahaatee madaxweyne Xaaf ayaa mar qura isbedelay kana laabtay go'aankiisii kadib markii laga joojiyay lacago uu ka heli jiray dowladda federaalka. warqad ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka qaranka 18 bishii December ee sanadkii hore ayaa lagu hakiyay qarashaadkii dowladda siin jirtay maamulka Galmudug marka laga reebay mushaaraadka ciidamada iyo raashinka. hakinta lacagaha la siin jiray maamulka Galmudug gaar ahaan madaxweyne Xaaf ayaa waxa sabab looga dhigay kadib markii si qaldan loo maamulay lacag gaaraysa 428,000 oo dollar oo dowladda federaalka siin jirtay maamulka Galmudug. go'aanka lacagaha looga hakiyay maamulka Galmudug gaar ahaan madaxweyne Xaaf ayaa la ogeysiiyay madaxweynaha Soomaaliya doonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo ra'iisul wasaare Khayre bishii September 2019 war saxaafadeed oo sidoo kale u soo saaray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayuu ku sheegay in uu wakiilashadii ka noqday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. xilligaas Xaaf waxa uu xusay 9 arrimood uu ka walaacsanaa kuwaas oo kalifay in uu wakiilashada la laabto. waxa uu Xaaf qoraalkiisa ku sheegay in xukuumadda federaalka ay faragelin ku hayso dhismaha maamulka Galmudug isla markaana uu garwaaqsaday in cadaalad darro ay ka soo fool leedahay Galmudug, balse go'aankaas uu dib kaga laabtay. warka qoraalka ay ka soo baxay 2 Janaayo 2020 madaxweynaha maamulka Galmudug ayaana sina u aqoonsanayn dhismaha Galmudug ee hadda ka socda Dhuusamareeb, balse waxa uu ku baaqay kulan looga arinsanayo aayaha maamulka Galmudug. madaxweyne Xaaf ayaa warqad ku taariikhaysan 4 bisha 2020 ku magacaabay guddi doorasho asigoo wali ku sugan magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka kooban ilaa 11 xubnood. Xaaf ayaana faray guddiga in ay ugu dambeyn ku soo xaroodaan 10 Janaayo 2020. Axmed Ducaale Geelle Xaaf asigoo faahfaahin ka bixinayay guddiga uu magacaabay ayuu waxa uu yiri guddigu waa guddi farsamo maadaama guddigii hore la baabiyay sida ugu dhaqsiyaha badan ayayna u shaqagalayaan. waxa uu cod dheer ku sheegay in sababta soo cusboonaysiisay khilaafka kala dhaxeeya Villa Soomaaliya ay tahay wada tashi la'aan. guddiga haatan ku howlan dhismaha Galmudug ayuu ku sifeeyay in ay yihiin dhammaantood shaqaale ka tirsan Villa Soomaaliya. warqadaha isdaba joogga ah iyo wararka kale ee ka soo baxaya Xaaf ayaana hakad gelin kara howlaha dhismaha ee ka socdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. dhismaha maamulka Galmudug ayaana hadda heer gabagaba ah maraya, waxaana la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo aadan guddiga doorashada Galmudug shaaciyaan xildhibaanada Galmudug kuwa oo iyana dooran doona madaxweynaha cusub ee Galmudug. inkasta oo uusan kaalin firfircoon ku lahayn hanaanka dib u dhiska Galmudug oo hawshiisu ahayd madaxweynaha maamulkaasi Galmudug isla markaana ay kala wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, haddana waxa uu madaxweyne Xaaf leeyahay saameyn oo ku weecin karo sida ay wax u socdaan. tani ayaana ka dhigan Galmudug in ay wajahayso jahwareer siyaasadeed oo hor leh isla markaana qarka u saaran tahay in ay yeelato 2 madaxweyne maadaama doorasho kale ay ka socoto magaalada Dhuusamareeb.